سورة صاحب يال ما أنت waxaa inay wadaa qaybtii saddexaad ee season-kii inoo socday qaybta saddexaadni waxay u dhigantaa qaybta shanaad ka hor inta aanan bilaawinne waxaa ka codsanayaa inaad YouTube-keena subscribe aad saartid filimkan wuxuu ku bilaabanayaa 5 sano ka hor qofka runta ah ee dilay haweeneyda lagu eedeeyay June waa wiilka xildhibaanka magaciisuna waa Dugyun dhanka kale waxaa jiray abaalmarin la siinayay shirkadda Yohan taas oo ah shirkad ku takhasustay data center laakiin shirkadaha kale waxay u maleynayeen in shirkadda Yohan ay tahay mid been abuur ah asagoo kulanka ganacsatada fadhiyane Yohan wuxuu sharxayaa muhiimadda ay u leedahay data center shirkadaha kale ee casriga ah balse ganacsatayaashu way ku qoslayaan iyagoo u maleynayo inuu yahay shaqaale caadi ah laakiin markii magaciisa la sheegay qof walba la yaabaya markaas ay ogaadeen inuu Yohan yahay maamulaha guud ee shirkadaas mid ka mid ah ganacsatada ayaa aad u xanaaqayo wuxuuna ku dhahayaa Yohan waa nin isla weyn farta ayuu ku taagayaa kadib markuu kulanka soo dhamaaday ninkii isxanaajinayay asagoo gaarigiisa saaran waxa wadadu istaagay gaari kale asagan wuxuu ku dhahayaa sidee ayuu nacas adigoo kale ah u helay leesin darawalnimo wuxuuna dhahayaa waa maxay qofka aan damiirka lahayn ee gaarigiisa wadada saan u dhigay markaas ayaa nin kale u imaanayo wuxuuna ka jarayaa farta wuuna cawaadayaa fartaasna Yohan ayaa loo geenayaa Yohan wuxuu sameynayaa geed meeshaal ayuu far ugu dhigayaa markii dambe Yohan aad ayuu u farxayaa sababtoo ninkaas hore ayuu u xaqiray gacan yariisa ay u keenayo koob cabitaan ah markaas waxa soo wacay xildhibaanka asagoo ka codsanaya inuu caawiyo si uu u daboolo kiiska dilka ee wiilkiisa Yohan wuxuu galayaa qol qarsoodi ahaa wuxuuna shidayaa shaashad weyn wuxuuna ka bilaabayaa inuu ka shaqeeyo wuxuuna amar siinayaa kooxdiisa inay galaan guriga qofka la dilay si ay u helaan cadeemo ayagoo la adeegsanayo qalab casri ah iyo muuqaal qiyaali ah Yohan wuxuu u muuqdaa sidii qof si toos ah ugu dhex jiro gurigaas wuxuuna si taxaddar leh u fiirinayaa raadka dhiigga iyo raadadka cagaha ee uu ka tagay cunuga xildhibaanka wuxuuna arkayaa in telefoonkii gabadha uu wili shaqeynayo markaas wuxuu daawanayaa CCTV-da ee guriga wuxuuna meesha ku arkayaa June oo marar badan meesha imaaday markaas ayuu Yohan go'aansanayaa inuu June u ekeysiyo dambiilaha halkii uu Dugyong ahaan lahaa wuxuuna la soconayaa dhaqdhaqaaq kasta oo June maalinta dhan waxa uu sameynayo xitaa kulmadiisa oo uu la yeeshtay Suji oo ahayd saaxiibtiisa markii uu June gurigiisa ka baxay ragga Yohan u shaqeynaya si degdeg u galayo gurigaas waxayna ka soo qaadayaan DNA-giisa waxayna sameynayaan fara been abuur ah oo lagu dhijiyay guriga dhibanaha si ay u muujiyaan June inuu yahay dambiilaha wuxuuna ogaanayaa in June isticmaalay qalab ilaalin ah markii uu la kulmayo Suji qayb yar oo ka hartay qalabkaas ayuu Yohan adeegsaday wuxuuna ku duray jirka gabadha si ay u noqoto cadeyn kale oo been ah sidoo kale wuxuu arkay inuu June lumiyay bahasha gacantiisa taasna Yohan ayaa isticmaalay si uu u dhigo meel cadeyn ah isaga ayaa meed ku riday boorsada weyneed qorshihii Yohan wuxuu u shaqeeyay si weyn wuxuuna ku guuleystay inuu June u ekeysiyo dambiilaha dhabta maxaabiista waxay arkeen miis weyn oo cuntooyin badan lagu diyaariyay qof walba uu yaabay balse hal maxbuus oo baahi haysay ayaa isla markii bilaabay inuu cuntada cuno dhanka kale June wili wuu wareersanaa wuxuuna arkayaa Yohan oo soo muuqday kadib Jia isku dayayo inuu u dhawaado laakiin waardiyaasha ay ka celinayaan Yohan wuxuu u sheegayaa inuu leeyahay qof walba qol gaar ah oo ku seexdo habeenkaas maxaabiista way nasanayaan laakiin June wuu fikirayay wuxuuna isku dayayaa inuu baxsado si tartiib ah ayuu u dhaqaaqayaa isagoo ka dhuumanaya waardiyaasha wuxuuna ka boodayaa meel kasto si taxaddar ah u fiirinaya agaaridiisa laakiin markii uu isku dayay inuu si degdeg ah u cararo waardiyaasha ayaa ku soo kacayaan wayna qabanayaan sidaas ayuuna ku fashilmayaa waxaana meesha imaanaya gaarigaasna waxaa saarnaa Yohan wuxuu ku dhahayaa ku noqo qolkaaga June aad ayuu u xanaaqsanaa balse ugu dambeyntii uu iska soo noqonayaa Yongi wuxuu dhahayaa runtii markaan ku arkay si u dagaalameysay waan ku ixtiraamay shaki la'aan adiga ayaa ah qofka aan rabay inaan dhinaciisa joogo markii iskiilow hadal kasta aa ku dhahay iyo wixiina soo dhaxmaray Yohan wuxuu sheegayaa in la qaban doono tartan maxaabiista u dhaxeeyo wuxuuna ballan qaadayaa abaalmarin gaar ah subaxdii xigtay khayl dheer ayaa yeerayso maxaabiistana waa la soo kicinayaa dhammaantooda waxayna xiranayaan dhar cad ay ku qorantaa lambarada qolalkooda daroon ayaa kor ku duuleysay si ay ula socoto dhaqdhaqaaqooda markaas Yohan ayaa marka la soo baxayo wuxuuna weydiinayaa sidii xal u seexdeen kadib wuxuu ku dhawaaqayaa inay bilaabanayso ciyaar tartan ah oo baabuur ah mid ka mid ah maxaabiista oo lambarkiisu yahay 11 ayaa ka hor imaanaya hadalkiisa isagoo la tani waa waali isla markiina Yohan qorigiisa ayuu soo qaadanaya kabacdina wuu tooganayaa taasna waxay argagax gelinaysaa qof walba Yohan wuxuu markaas keenay gaari weyn oo lacag ka buuxdo lacagtaasna waa 5 bilyan oo lacagta Kuuriyaanka wuxuuna sheegayaa in qofka ku guuleystay tartanka uu heli doono lacagtaas markaas ayaa maxaabiista xiisa gelinaysaa waxayna diyaar u noqonayaan tartanka intaas kadib Dugyong ayaa imaanayo asagoo la socda nin kale oo marti ahaa
Yohan wuxuu sharxayaa inay ciyaarta tahay mid nolosha dhimashada lagu kala baxaayo. Maxaabiista ayaa markaas loo dirayaa garoomo ay baabuurtooda ka arkaan. Markii ay tageenna waxay ogaadeen inay baabuurta oo dhan ay yihiin kuwa duug ah oo jajaban. Mid walba wuxuu bilaabayaa inuu habeeyo oo mudufikeeyo gaarigiisa. Ninkaan nasiib ayuu leeyahay maadaama uu helay gaari sportis ah. Halka duu uu weli ka fikirayo sida uu u weerari lahaa June. Dhanka kale Yohan wuxuu sheegayaa in cidna uusan ugu tagaynin meeshaas, isla markaasna cidna aysan dhab ahaantii ku guulaysan doonin lacagtaas. Ciyaarta ayaa bilaabanayso, laakiin waa mid dhimasho iyo khiyaano ah. Dhammaan maxaabiista waxaa markale loo keenayaa cuntooyin macaan. Kadibna Yoonga ay u imaanayo June si uu ula sameeyo saaxiibtinimo. Wuxuuna rabay inuu ka caawiyo gaarigiisa sababtoo wuxuu doonayay inuu barto tartanka. Yoonga wuxuu raaci jiray amarada Tuksu, balse dhab ahaantii wuxuu rabay oo kaliya inuu saaxiib la noqdo June. Dhanka kale maxaabiista kale sida G waxay weli ka fikirayaan xeeladii ay ku guulaysan lahaayeen tartanka. G wuxuu la kulmayaa Yohan si uu loo heshiiyo, wuuna ku soo dhawaanayaa maadaama uu hore u sheegay inay maxaabiistu ay la hadli karaan haddii ay rabaan. Markaas G wuxuu dhahayaa waxaan diyaar u ahay inaan noqdo qof daacad ah. Yohanne isla markaas waxaan fulinayaa amaradiisa oo dhan. Taas micnaheedu waxa waa inuu doonayo inuu ka mid noqdo kooxdiisa. Markii la fiiriyay fiilkiisa wuxuu ogaanayaa Yohan inuu G si fiican u yaqaano sida dadka loo maamulo kadibna loo qiyaano. G taas ayuu maqlayaa wuxuuna dareemayaa xishood, balse haddana wuxuu ku adkaysanayaa inuu faa'iido u leeyahay Yohan. Kadib Tuksu isna wuxuu u tagay Yohan si uu ula heshiiyo markii uu ku guulaysto tartanka. Tuksu wuxuu rabay inuu dilo June. Yohan wuxuu ku dhahayaa haddii aad rabto inaad garaacdo ku samee gudaha ciyaarta, waa ciyaar sportis ah, cidna kuma xiri doonto. Dhanka kale June wuxuu caawinayaa Yoongi si uu uga hagaajiyo gaarigiisa. Labadoodina waxay go'aansadeen inay saaxiib noqdaan oo is caawiyaan. qaybtan halkaas ayaynu joogaysaa. waana mahadsantiin daawashada aad fiidiyogan aad daawateen.